بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة وناكسن مالin wanaagsan رمضان كريم daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij caafimaad oo toddobaadkiiba hal maalin aad ka daawataan telefishinka caafimaad cable ala barnaamijkeena waxaan ku falanqeyn doonaa amaba aan kaga hadli doonaa hadduu eebba yiraahdo barnaamijkeena aan maanta ku soo qaadan doonaa cudurka sokorta ama macaaniga sida aad idinka u taqaanaan waxaana marti ku ah barnaamijka Dr. Cabdikariin kaasoo naga warbixin doona haddii eebba yiraahdo cudurkaas. Dr. kusoo dhawow barnaamijka. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما سنتين سيدا ونكسنا يسولوسين بهذا عفمات كيبل تي في وغورسو ولا شيء فرمو هذا ما سنتين ugu horreyn Dr. waxaan weydiinayaa su-aasha ah waa maxay sokor ama cudurka macaani inoo falanqeeyo وما سنتهاي هدان كهذا لو حلو يغانو دايفيدكا أما معانكا أما سبورت حنو حلو يغانو معانكا أما سبورتا أما دايفيدكا أما جلوكوستا وكرونيك ديسيس كاسو انت بدن دعا مركا بانكريسكا أما وحلو يغانو بانكريس سو ساري وايو سنكور كفيلان جيركا مركاس أيا واحد ديكرا وفكاس وحوكا sonkor ama glucose haddii aan su-aasha labaad u gudubno doctore waa maxay calaamadaha lagu garan karo cudurka macaanka ama sokorta waa mahadsan tahay waa su-aal macquula oo aad muhiim u ah waana waxyaabaha ugu badan ee dadka inta badan mistake uu ka dhaco ama hospitalada joogtid iyo haddii dhakhtar la kulantid waxyaabaha ugu badan waxaa jira xanuuno badan oo isku calaamado isku soo dhow leh marka ka hadlayno wax loo yaqaano sokorta ama glucose ama diabetes ama macaanka ka hadlayno calaamadihiisa ugu horeeya aad dareemi kartaa waxay tahay number 1 waxaad dareemaysaa qofka inuu isku arko inuu sameeyo wax loo yaqaano frequency for urination oo qofka suuliga inuu ku laabto ama waqti badan uu suuliga ku laabto waxaa kaloo kamid ah qofku wuxuu dareemayaa wax loo yaqaano weakness for muscle وقفك مسلسك أما واحد لو يغنى مرقاه وحنا قلنا يقف ويكنسك أما أد ضعيفة سيدو كله واحد ريمسا واحد لو يغنى إنرجي جادا وأد هو سيء أما لوه سيدو كله واحد ريمسا على مدى الوقت قفك وحكم إذا إن الوقت قبله فيشين بروبلم كإنه كله إن بروبلم قفك وقبله واحد لو يغنى بيلنس وحياة سلوات sidoo kale qofka hadii waqti badan hayso waxa kamid ah communicationada ka dhalanaya ama waqti badan hadii qofka xanuunkan uu la nool yahay waxa kamid ah in lagu arko wax loo yaqaan indhaha kale glaucoma ama cataract waxyaabahaas in yani in the future in qofka ay ku dhici karaan waxa kaloo kamid ah oo lagu arkaa qofka baahi fara badan oo mar walba taagan oo qofku uu dareemayo uu leeyahay mar walba baahi baan dareemayaa ama angri sidoo kale waxaa lagu arkaa calaamadiisa waxaa kamid ah oo diabetes uu leeyahay in qofku mar walba adarkiisa uu ku leeyahay waxay haya haraad badan ama biyo badan uu qaadanayo oo biyo badan uu qofku qaadanayo oo adarkiisa uu leeyahay biyo u baahanahay haddana after few minutes uu aadayo suuliga sidoo kale qofka daal fara badan uu isku arko madax xanuun fara badan inuu leeyahay waxyaabahaas calaamadiisa commonka ah oo lagu arko kamid ah adamaasida وقفت دكتور sida aad sheegtay wuxuu leeyahay caqabado aad fara badan balse waxaan ka weydiinayaa ama ma sababi karaa inuu gaaro heer qofkaasi naafnaqdo ama uu geeriyoodo aad u mahadsan tahay waa su-aal macquula waana su-aal runtii u baahan in la iftiimiyo yani saa su-aasha u fahmay waxay tahay dhimasho ma sababi karaa صح ها dhimasho way sababi kartaa macaanta sababtay tahay wax xanuunada ugu badan aan dhihi karo waxay sababaan dhimasho maadaama ay yihiin xanuunada inta badan immune disease-ka qofka markaan ka hadlayno diabetes-ka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood type 1 iyo type 2 inta badan type 2-ga yani dadka waaweyn ama dadka age-ka uu u badan yahay common waa caanka ku yarna waa ku dhici karaa laakiin common wuxuu yahay dadka waaweyn laakiin type 1-ka waxaa la dhahaa waxaa kaloo lagu type 1-ka waxaa lagu magacaabaa
waxa loo yaqaano dependence insulin waa la dhahaa, dependence insulin waa la dhahaa, ama Jonafel diabetes waa la dhahaa. Marka waana type 1ka waa ka ugu badan ee sababa dhimashada qofka. That's why qofka askortiisu way dhacdaa, sometimes way kacdaa. laakiin inta badan qofka markay ay heer ay gaadho yani ama waqti badan qofku uu hayo markay waxaa jirta xanuuno badan oo risk ugu jira oo qofka haddii diabetes ku dhaco keeni karo. waxaa ka mid ah oo risk ugu jira ama complicationada ka dhalanaya ka mid tahay stroke oo kale, oo qofka haddii waqti badan hayso brain stroke waa meelo ay ugu badan ay saameyso ama saameynta ay ku yeelato. sidoo kale waxay sababtaa wax loo yaqaano kidney failure ama kelyaha oo kale inay shaqayn waayaan, ama blood vessels iyo waxyaabahaas inay saameyn ay ku yeelato. sidoo kale waxaa dhici kara waxyaaba fara badan oo indhahoo kale waa iyana way sababi kartaa, ama cataract ama glaucoma ina waa qayb ay keeni karto inay dhacdo. sidoo kale waxaa imaan kara iyagana wax loo yaqaano neuropathy oo qofka nerve iyo waxyaabahaas inay saameyn ay ugu yeelato waa possible, ama waa macquul oo inta badan waa lagu arkaa. sidoo kale waxaan dhihi karnaa qofka waxay ku sababi kartaa dhimasho, yani qofka skortiisa haddii ay gaadho heer ama waqti badan hayso oo skortiisa yani la xadidi waayo oo qofka ama irbad ha qaato. inta badan type 1ka qofka waa dependence insulin uu qaadan karaa. marka hadduu waqti badan qofkii maxaa ku dhax xanuunkii la nool yahay oo usan control fiican usan helin oo usan isaga iskantaroolin, risk wuxuu ku jiraa qofkaas in skorto ay meelahaas oo dhan ay waxyeelayso, inuu qofkaasi uu risk u galo inuu dhinto. waa gartay doctore. tan kale cudurka sokorta ama macaanka waa cudur sidaan ognahay u badan dadka Soomaaliyeed amaba inta badan daashada. marka cudurkaas inta ugu badan inuu dhibaato u geystaa ama inta badan inuu ku dhaca cudurada. waa su-aal macquula, waana wax runtii u baahan bal in lagana laftimiyo yuu ku dhici karaa xanuunkan. saas waa isku fahmay yaa riski ugu jira inay xanuunkan u qaado ama develop gareeyo. waxaan dhihi karaa xanuunkan wuxuu ku dhici karaa